waxaan ballan qaaday oo visionkayga ama aragtideeda foga ummadda Soomaaliyeed inaan rajada ku soo celiyo rajada ummadda Soomaaliyeed ee doonayso waa nabad iyo nolol weeye nabad iyo nolol haddaysan jirin ummad ma jirayso waxaana bays u ah nabad iyo nolol koow waa idiin sheegay danta shakhsiga in laga guuro oo loo guuro dan guud danta guud waxay tahay oo aniga iga bilaabatay oo idinku aad igu taageerteen inaan idin keeno saan idin ballan qaaday ra'iisul wasaare iga wanaagsan ra'iisul wasaarahana ballantii waa fulay oo wuxuu keenay wasiiro ka wanaagsan wasiiradana waxaa looga fadhiyaa bacdama 60 bari ay joogaan inay keenaan shaqaale ka wanaagsan ballantaas midii fuliyay ballantaas kuwa ku xigana aan sheego aan idin fulinay amaanada koow waxay ka ahayd wixii aan ballan qaaday amaanada ummadda Soomaaliyeed waa kala shakis waa la kala fogaaday waxaa la isku diray qabiil iyo qabyaalad iyo xagjirnimo amaanadu waxay tahay wixii aan noo dhiibateen inaan siday tahay kugu hayno oo aan isku keen hayno oo wada jir iyo midnimada kugu shaqeyno wixii aan noo dhiibateenna si fiican kugu maamulno oo aan la dagaalamo musuqmaasuqa aysan jirin shakhsi kaligiis gaar u naaxa oo aad kulli nolol wada heshaan oo nimcada ilaahayna siiyay khayraadka dalkan leeyahay oo idin soo wada gaaro macquul ma aha mana aqbalayno waddankan barwaaqada ku jirta in wiil Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed ee gaajo ku seexdaan mana doonayno waana ka dagaalaynaa riboorka idin siiyay ra'iisul wasaaraha waa bilow waxaa idinkaga fadhiyaa idinka dulqaad yaa idinka rabaa iyo wada shaqayn inaad sii xoojisaan inta hadda aad maqasheen oo 60 casho ah waxaan idinka ballan qaadayna 4 sano ka bacdi inaan noqono dowladaha ka magacaaban Afrika hadduu Ilaahay yiraahdo waxaad maqasheen inaan la dagaalanay musuqmaasuq waa maqasheen waa bilow ma dhow hawsheeda dalkan waxa meesha istaajiyeen arkaysaan waa musuqmaasuq markaa arkaysaan argagixiso ama xajir waxaan naaxiyey waa musuqmaasuq markii loo diiday askarta forashii ku jirta oo kaneecada ku leeyahay mushaharkooda waa musuqmaasuq markay idinka mushahariin la diiday ama shaqaalaha dawladda rayidka loo diiday mushaharadooda waa musuqmaasuq lacagtu way jirtaa ee qof jeebkiisa aad waana joojinaynaa amaanada loo dhibateen waxaa la socda amniga wax kaligeen anagu aan sameyn karna maaha waa wax noo wada yaala shaqo noo wada taalo way amnigaasi wuxuu ku xiran yahay idinka ciidamadan haysana tirada waa taqaanaan guri walba iyo geed walba ma istaagi karaan idinkaa la rabaa inaad u sheegtaan xogta meesha cadowga ku jiro meesha qofka qarin dumiska uu ku jiro idinkaa la rabaa inaad soo sheegtaan amniga markaas laga rabaa inay gareeyaan oo ay qabtaan waxaan uga mahad celinayaa shalay magaalada xaafadda waa bari miinadii ninkii ku aasayay oo qof shakhsi ah oo reer waa bari uu soo sheegay haddii arrintaas ay badato qof walba uu magaaladan degan oo reer banaadir uu xil iska saaro oo uu sheego kuwa guryaha ugu jira oo sharwadayaasha ah waxaan idin sheegaynaa 6 bilood magaalada nabad inay noqonayso insha Allah waxaa kaloo idin sheegaynaa annagu waxaan u taagannahay ballan u qaadno oo aan dhaar u marnay xasiloonida magaaladan yaan dhaar u marnay xasiloonida macnaheedu waxay tahay magaaladan bilicdeedii quruxdeedii iyo sharafkeeda inay soo noqoto inay la tartanto Kenya Nairobi inay la tartanto Addis Ababa inay la tartanto caasimada adduunka ma kula tartami karno iyadoo boroono magaalada dhexdiisa ay marayaan oo qoryo culus ay saaran yihiin oo shacabka lagu leenayo kulama tartami karno qofkii askari ah oo qof shacab wax u geysta ogaaw waxaad ogaataan tiirkaa kuu dambeeya maxkamad baa lagu saari waxaa kuu dambeeya haddaad qof disho
ما وحكومة ما يشتير كي استاجيس عيد ما قلب كسيدة واحد عيد ما قلبه سيدوته شعب كيلنا إلى لسان إلى احترامتان إلى الله شقيسان يجد وحكوته هذا الليسان والحرمة الرئيسان يا دولدو الله ينظر يا ديكو عيد نوتيه شعبك كيس الليتا هلا قالوا كيس تبردرن ولا جا حقدرين يعني حقيس هلا سيو كان توجا أو خاينكا أو قرنجوبس كان قبطة هو جينا كاس كبحية شعبك أكون بحرينا حسنوني واتاس مرك إن قفوا شرعي وهو سنة هذا ما قف في قرية هيستا إنه كأول بني هاي شعبك إياه دولة ما وحوي قفك قرية هيستا وعيدا كهو قرية هيستا الدفاع عن الكيس إياه أمديس أنت سالم كيف فديا وأوجا هاي هاو في عمل قبطان مال والبا وأوهل أنتيهين دفاع عن الكينا لكن خلطات كدعاية إياه كينا هم أو كسر جسنا يا ماتيرا أما دبعتين أيه هلا قبط محايا المجا دولة يا مجا عيدك وحودي مايا هلا قبط أمانك لا دجالك أرجع حسابه وأنا يقعد لكن وحنا ظهر ريا إن عن هاي ولا له ناتيهين عروتي ناتيهين إلهي يسوع هذي نوعي ماذا أنا قاعد سين واحد بعنتيهين دولة في عنواها ستان دولة آمنة واها ستان دولة عالم كله حساب تتواها ستان إذا كان أمسوا من الرجل وعليه هنا أو الدفاعي هذا دفع جوجسان قريه هذا الأمرنا جوجيه دفع ومدين هلايلنا هنتيين هذا البرونة إيمان الله إيمان كوا أجنبي وهل كان أجمد إلى يوم الصومالي يديدان دولة دمو أو يديدان هرمرة أو عالم كنجا حيران أو نجدي كان صومالي إلى تعيب هالجلال أو كدي مقدشة مال الإيمان كريم ويسكن علمي إنه هذا ذل كانوا وايد كسرنا أنا جالس كلا بس ذل كان أنا جالس كلا بس كنا أنا جالس دوتين وحنكون شقينا وهاينا وايد كلا شقني وايد كوم شقني وحنكون شقينا وبلنتين هي دان تدل كيدات كيديته عيدا كدلك سيدا الهند تبغى وقتي سيدي اللي كذا يقال أفريقيا وقتي ما أنت حالة كجرنا وقتي إنا وحكبت الحالة واقو خصبنا له إنا حالة وحكبت الشيء واقو خصبنتي وقد قالتان دور كي الهند تي حالة يظروف على كجرتان أما هو اللي قرب تاجنا هاي مشاهدين هو اللي كوسا دلالنا إذن كنا دلكي نودنت قد يالدنا كفوا هذا قد يالد واتن صوماليا قرنما البربرسي كفوا هذا قد يالد وأركيسا قد يالد ماشي ندكتي إن عيد ماشي شيء نوكل دحجرات إن أفر بقول صدح بقوله محاكم إلى هذا عيد مو حجرها وجبنا كيمي إن صومالي ودي ذا ينبض واركتان ماشي أسوحنا جالسين قد يالد نك عضو درس حرتو على كان الجرف كل حرتو ومن قرنا قبيل معها ما أنت قبيل آدهم بريسو أوه وكبه هذا عيدك وأنا كم محكمة ديننا وحد دارتي قرن كصوم عليه إلى الدفاع له أنت أصلا كافلنا وحد نوصل حتى عدالة وأبلغ إذا قاضي أمانه يا أمي وهوت وطه وهذا عن وضله عدالة صوفي صلاة صوف هذا صدق حد وصو صوته وحن كقبل عدالة وهذا ما في ومدى صومالية دولي واتيسن إن حق وضعه الويان وحفي عن ما رجع وضياشا أو حاكمينتا وحان لي شغلنا هذه أول أيجرين إن تقولوا حكومتان شنجر أو تكون ركتان وقت كذا وعد ماضي إن هو يأويس أما قف حق يسوء أوياي هذه باتيسان وقت كذا وعد ماضي عدالة بالي كرر وحدات عدالة كين ويدان أما كنا ما مثلشان شعب كنا ما مثلشان دولة ما مثلشان وحكون بين سنة حبسي مرضى بدعي ميسو
oo anaa ballan qaaday oo dowladdaana ballan qaaday qof Soomaaliyeed intuu hortago maxkamad cadaalad darro lagu sameeyo hawshaasi waa waxyaabaha dalkan meesha uu taagan yahay gaarsiiyey oo ilaahay noogu carooday oo aan adduunku wax uga hooseeno laba qof iyo saddex qof oo xun ka yeeli mayno inay magaceen isticmaalaan ummadda Soomaaliyeed ay duleeyaan ay dhibaato u geystaan oo ay xaqdarro ku sameeyaan u adkaysan mayno waa idinla xisaabtamaynaa haddaad hawl fiican qabatidna oo cadaaladna annagana waa idinku abaalmarinaynaa aakhirana ilaahay waa idinku abaalmarinaya jannad ku gelaysaan haddaad dhibaato samaysaanna annaga idinku ciqaabayna aakhirana waa ku dambaysaa arrinta horumarka dhaqaalaha oo ku xiran cadaaladda markii aan ammaanada idin ilaalino oo amni keenno oo cadaalad idin keenno dhaqaalahu waa horumari ummadda Soomaaliyeed waxay u jihaysanaysaa barwaaqo iyo horumar iyo nolol waa igu ballan dhalinyarada Soomaaliyeed oo 70% ah oo shaqo la'aanta hayso 4 sano hadduu Ilaahay yiraahdo inaan ka shaqeeyo inay shaqo helaan maxaa yeelay waxaan ogahay qaacidada ama formula marka laga shaqeeyo amniga laga shaqeeyo ammaanada cadaaladda laga shaqeeyo qof walba waa noolaanaya xitaa annaga bixinayna welfare wax la yiraahdo macaawin annaga bixinayna maxaa yeelay wixii jeeb shakhsi aadi jiray annaga u hayna qofka curyaanka qofka maskiinka gabadha agoonta haysata ilmaha agoonta kullu annaga dowlad waa ilaahina anugu nagu xisaatamaya dhaqaaluhu waa horumaraya haddii dadweynow shacab weynow aad nagala shaqaysaan dowladda aad kala shaqaysaan cadaaladda haddaad nagala shaqaysaan amniga nagala shaqaysaan maxaa yeelay markii magaaladan amni ay noqoto waxaa loo imaanaya maalgelin yaa imaanaysa maxaa yeelay dalkani waa dal khayraad badan dhaqaaluhuna wuxuu ku istaagaa 3 arrimood yuu ku istaagaa dalku waa inuu khayraad leeyahay dabiici ah waa leenahay dalkeenu waa buuxaa labo waa in dalku maamul iyo shaqaalo fiican oo hufan oo xirfad yaqaana uu leeyahay marka saddexaadna dhaqaaluhu waa imaanaya oo labadaas dhaqaalaha ku xiga oo capital la yiraahdaa way naga go'an tahay annagu inaan la tartanno caalamka waa naga go'an tahay midnimada Soomaaliya waa muqaddas ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan haddaysan u midoobin danahooda haddaysan dalkooda u midoobin haddaysan diintooda u midoobin caalamku way ka harayaan caalamka waxaan kula tartamaynaa annagoo mid ah annagoo wada jira yaa caalamka kula tartamaynaa caalamku wayna fiirinayaan sidaan wada shaqeyno shacabka iyo dowlad see wada shaqeeyaan haddii ay arkaan in aan nala dhex geli karin waa noo soo istaagayaan wax alla wixii aan ka rabnana waa nagala shaqeynayaan annagoo siman annagu cidna u daba istaagi mayno cidna u daba istaagi mayno annagoo wax qabsan karna cidna u daba istaagi mayno innagoo isku tashan karna annagu waa inaan isku tashanno taasna waxay ku imaanaysaa dowlad fiican iyo dad fiican oo wada shaqeyn leh iyo ku imaanaysaa caalamku waxay u sheegayaan ganacsatadooda marka inay Soomaaliya maalgashadaan maalinta Soomaaliya maalgashi u bilowdo oo dowlad nadiif ay joogto iyo shacab nidaamsan waxaan idin sheegaynaa Soomaaliya muddo 4 sano ah inay ka horumarayso dowladaha Afrika goolkeenu iyo visionkeenu waxa weeye 4 sano ka bacay inaan ka horumarno Afrika hadda yarsanna waa ka horumari karnaa waxay ku xiran tahay rabitaankeenna annagu ma rabnaa horta inaan dad Soomaaliyeed oo wax walba wadaag inaan nahay ma rabnaa inaan noqono dad Ilaahay u xamdinaqa inaan leenahay dal fiican inaan nahay hal dal inaan nahay hal diin Ilaahay muu xamdinaqa karnaa Ilaahay muu noqon karnaa haddaan intaas gaarno oo iscafino Soomaaliya waa istaagaysaa Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya Ilaahay ha nooleeyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مدحوينه خطبة هذه ما أنت وهادي هذا وفرح سنة هاي حتى نوحنا رجينا يا إن معناها واحد بدنا تقابل في مهانتي بقول كبريء